buugga xalka qoyska. حبي حرمدي قلبي جاي دمرتان كحشاي حبيبي حالك واسدي xaalkaygu ma fiicna xushmadaydu ma buuxdo intaan xalka qoyska xafidayo dhammaantii oo aan xiriirkeena ku dhisanayno xogtiisa. أنا وضع حفظنا بسنة غير حرمد لي حالك قويسك وامحي xalka qoysku waa buug xaajadii gurigeena iyo xeeladii aqalkeena noo xayaabo tiro xusuus weyn inagu reebi. xalka qoysku waa buug xalinaya dhibkeena oo ka helayno xog buuxdo qoysku uu ku farxayo. حالك قويسك وابوك حيل ليرا قويسو لحماتي حاجدو قويسكينو جوغو حالينا يحمهو حلقو هسيدي xushay oo ma deyne xagee baan ka helayaa. waxaad ka heli kartaa dhammaan xarumaha buugaagta lagu gado sida Zayla Bookshop, Qaaf Bookshop iyo Barakaad Bookshop. xalka qoysku waa buug kugu tababaraya sidaad u dhisan lahayd qoys waara iyo sidii aad isaga saari lahaydeen mugdiga iyo is-afgaranwaaga hareeyay guryaheena. Horay u gaar oo yaan laga dhamaysan xalka qoyskaaga. xalka qoyskaagu wuxuu ku jiraa inaad hesho buugga xalka qoyska. xalka qoyska. xalka qoyska. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم وفقنا ما تحب وترضى دعوة ضيال مركة لا يكون تونكسن وبرنامج كني حلقة قيسك قيبتي سي كوبي تونات بإذن الله تعالى waxaanu casharada maanta uga hadli doonaa qaybta labaad ee qaybaha burburiya qoyska. qaybtii midaan ka horeysay waxaanu ka soo hadalay qaybaha burburiya qoyska qaybta koobaad oo ahayd burburka ku dhaca qoyska inta uusan qoysku qoys daga noqon. waxaanan ka soo sheekaynay labada qaybood oo u bixiyay gowraca gashaantida ama gowraca inanta sabab Soomaaliya u taqaan gashaanti waa inanta kaasoo aan laba qaybood noqday qaybta kufsiga oo gabdhaha tooska loo kufsado gowraca ku dhaca iyo waxa aad Soomaaliya u taqaan qodbasirada oo u bixiyay gowraca qarsoon. marka kufsigan waxaan u baxshay gowraca muuqda qodbasirada waxa Soomaalidu u taqaano ayaanta nagu faafay dhexdeennana waxaan u bixiyay gowraca qarsoon waan ka soo sheekaynay insha Allah taala waxaan u gudbaynaa marka maanta hadii la yiraahdo qaybtii labaad ee gurigu markuu dago waxyaabaha aniga ila noqotay inay gurigii burburinayaan oo aan ku soo sheegay sideed qodob inay asal u tahay markuu gurigu dago burburku ku yimaada. sideedaas waxaan ka soo dhignay balwada oo saddex nooc ah balwada la cuno ama la cabo ama la isku duro oo qayb ah balwada social media oo maanta aad iyo aad guriyo badan uga burburisay iyo balwada bedelida midabka qofka Ilaahay siiyay ama iscadaynta waxa loo yaqaan. labo gogol xumida ama isqanin la'aanta jinsiga ah ee gogosha ee dadka isqaba ay ku hungoobaan oo iyaduna guryaha naga burburisay. saddex shakiga oo asaguna saddex nooc aan u soo qaybiyay oo ah shakiga qofku naftiisa uga shakiyo xaaskiisa khatar xagga amnigiisa iyo shakiga xagga maalka oo qofkan wuxuu bixinayo inaysan meel sax ah ku baxayn ah iyo shakiga gogol dhaafka uu ka shakiyo. marka shakigaasna guryaha uu naga burburiyaa. afar waxa weeye ixtiraam xumida bil aadanku wanaag iyo wax ku leeyahay xumaan waxba kuma leh xurmo wax lagu waayay iyo xaq dhowrna xagasho iyo ixtiraam xumo lagu ma helo taasna guriyo badan bay naga burburisay. waxyaabaha guryaha naga burburiyay maanta waxa kamid ah bakhaylnimada oo runtii iyaduna qayb ka ah waxyaabaha guryaha maanta naga burburiyay. waxa kamid ah masayrka oo gabdho badan maanta ay guryahooda u baabacsan yihiin masayr ay masayreen rag badanna ay gabdhahoodii u fureen masayr ay ka masayreen
gabadhii ay qabeen. waxyaabaha ka mid waxyaabaha guryaha naga burburiya waxaa ka mid dulmiga oo asagan 3 nooc u qaybiyey. dulmiga quuriwaaga ah oo bil aadamku ay soo quureen waxa fiican, iyo dulmiga isku dirka oo dadka isqaba la isku dhufto ama la isu dhexmaro oo la isku dilo, iyo dulmiga isdilka ama isduminta oo bixiyay oo ah midka qofku uu sameeyo waxyaabo sharciga islaamka xaraamka ah si uu u soo jiito ama uu maaragtay u xanibo qofkan asagoo isugu xanibo, taasoo keenta waxaan mustaqbalka reerkaas iyo gurigiiba baaba ku dambeeya. waxaa u dambeeya guurka faraha badan ee aan laga fiirsan ee raggu ay galaan, taasna waxay keentay guryo badan inay dumiyaan sababtoo ah mas'uuliyaddii guurka faraha badan oo ah aad mid u culus lagama wada bixi karo. damacuna waana xukumay, dhib badan baana ka yimid arrintaa. marka 8 qodob hadda aan sheegay ayaa aniga ila noqotay inay guryaha markay degaan burburiyaan. waxaana insha allahu tacaala aan sharxi doonaa maanta 2 qodob oo u horeysa oo ah balwadda iyo gogol xumida ama isqancin la'aanta gogosha. haddaan markeedin kugu celiyo casharkan waxaa soo jeedinaya waa Cismaan Sheekh Qoysbile sahal loola socdo. marka balwadda waxay ka mid tahay waxyaabaha ugu waaweyn qoysaskeena maanta burburiyay, sababtoo dalku markuu burburay wax walba oo dad xumeeyaa la soo geliyay. balwadda marka la cuno ama la cabo ama la isku duro waxay maanta baaba badan u keentay qoysas badan oo dhisnaa ay baabiis. balwadda qofka cuna waxaa baabaa caqligiisa, waxaa baabaa garashadiisa, damiirkiisa luma. qofka balwadda isticmaal waxay ka muuqataa caqligiisa iyo jirkiisa. qofka balwadda isticmaalaa ma qaadi karo mas'uuliyadda gurigiisa, nafaqeynta ilmihiisa, mas'uuliyadda gogashana ma gudan karo. waxay keentay marka balwaddii in qofkii si toosa u baaba'o, dadku mas'uul ka ahaana ay baaba'aan, taasoo keentay in la isugu samri waayo laguna kala tago. reemiga waxay dhaheen ahaan weelkeedii gabtay cid kale ahaan weel uma noqoto. macnaha qofku hadduu asagu mas'uuliyaddiisii qof mas'uuliyad gurigeed gudan waayo dee gurigu u joogi maayo. gurigu waa dad waxa ku nool, waa hooyo, waa ilmo ay dhashay ama waa haweeney keliyaba. hadduu xaqii gogashana gudan waayo, xaqii nafaqadana gudan waayo, xaqii maxaan ku yidhaahdaa isha mas'uuliyadda oo gurigana uu gudan waayo, qofku tiir maaha, meesha ka baxay ma joogayo, burbur baa imaanaya. balwadda la cuno ama la cabo maanta la isticmaalo waxaa ka mid ah qaadka, sigaarka, xashiishka, shiishadda waxa la yiraahdo oo iyadana ayaantan soo korortay. waxyaabahaas ugu culus. qofku markuu waxyaabaha isticmaalo dhaqaalihii soo gali lahaana waxaasay ku baxaan, ilmihii iyo gurigiina waa loobaya, maskaxdiisa kuma jiraan. wixii soo galan waxaasuu ku iibsanaya. maanta haddaad aragto qof qaraabo kula ah oo ama kuu yimid ama si u dhiban oo balwad leh, haddii maanta contribution loo sameeyo oo la isugu dolay ilmihii la aad intuu kugu yimaado problem ama shaa ama qoyskii ah, waxaa xaqiiqa 100% ilmaha gaarsiinaya waxa uu dhibto. meel la xula fariisanaya qashinkaas ku gadanaya, halkaas la jooga ilmihiina yeelkood. waxay keentay marka taasuna burbur badan. balwaddan la cabo ama la cuno waxaa ugu daran qaadka. qofka waqtigana waa ka lumiyaa, maankiisana waa dooriyaa, caqligana waa ka lumiyaa, sharaftii iyo qiimuhu lahana waa baabi'iyaa. waxaa tusaale inoogu filan fudud gabadha midda ugu akhlaaq badan oo ugu sharaf badan oo ugu maxaanku ixtiraam badan maalintii ay qaad iibiso oo ay qaad daruuf kasta ku qasabtee kama soo wareegaysa hal bil intaad arkayso iyadoo nin halkaa ku dhagan oo leh lacagtaysi xalan miyaad maaragtay igula tumatay. waa wax bil kadib ayaa qofkii dhan karakterkiisa ama dabeecadiisa ku bedelmaysa, hadalkiisa baa bedelmaya, dhaqankiisa baa bedelmaya, xurmadii xishoodka dhan baa ka tagaya. qofku wuxuu noqonayaa qof aan waxba ka xishoon. qofka cuna iska daya qofka gada ama nin ha noqdo ama naag ha noqdee waa isla ogtiin maanta markii ay
la kala qabanayo dad halka isku dhagan oo la chat lacagtiisa waxay ku hadlayaan dhamaanteen una ogay wiilkuna gabadha wuxuu dhigay lacagtiisa hadda iyadu qaad cunto wuxuu dhigay miyaan kula tunto gabadhuna intii halka nin ku dhigtay la miyad kula tunto lacagtiisa shalay waxay ahayd gabar wanaagsan gabar sharaf leh gabar gurigeeda joogta marka qofkan ba cunin oo ka ganacsada saa u hadlaya qofkii cunay oo maankiisii maskaxiisa ku quudiyay waxa caadiga ka bedelaya jirkiisii oo sidii ilaahay u abuuro caadiga la dagaalamaya oo qeyral caadi dalbaya wax wanaaga laga sugaya waa ma magaciisa ba qaad la dhahaa waa qaad marka barnaamijkan balwada ah ama sigaarka ha noqdo ama khamriga ha noqdo ama qaadka ha noqdo dhamaan waa maanta waa masiibo weyn oo maanta reerahanagii baabi'isay khamriga waxaa la ogaaday inuu qaadku ka xun yahay oo qaadku 100% ka xun yahay dadka khamriga caba marka la qiimeeyay iyo dadka qaadka cuna waxaa aad u liitay dadka qaadka cuna oo reerahooda dayacay oo burburay oo inta badan dadka khamriga caba ha soo dhacdhaca haduu rabe waxaa laga yaabaa inuu gurigiisii reerkiisa inta badan sida midkaan u dayacayo uusan u dayacin laakiin midkaan waqtigiina waa dayacay qaadka cuna caafimaadkiisina waa dayacay gurigiisii mas'uuliyadiisina waa dayacay marka qaadka iyo qashinka la cunayo maanta reero badan buu naga baabi'iyay waxaana hubaa in maanta qoysas fara badan oo noo dhisnaa markii balwada dhex galeen ay ka naga baabi'een si fudud iyadoo la ogyahay inaan qofka qaadka cunaa uusan mas'uuliyad guri iyo mid naftiisa midna waxba ugu filay marka waxaan rabaa gabdhaha raba inay guursadaan oo maanta dookhooda xulanaya inay ka digtoonaadaan qof balwad leh inay guursadaan qof balwad leh ama qaad cuna ama xashiish caba ama khamri caba ama qurun kalaba u qarsoon yihiin waa inay ka digtoonaataan لأنه haddaad ku gasho qof noocaasa maanta aad isu dhiibto labay mid noqonaysaa inuu ku baro qashinkii iyo qurunkii waa asaga uu watay oo adiga asagu aad isku nooc noqotaan oo isku bah noqotaan iyo inaad inta u adkaysan weydo oo u dulqaadan weydo aad ka cararto aad ku garoobayso ayay noqonaysaa ilmihii iyo caafimaadka ayna ku dayacmaan marka waa idinkaga digayaa balwadaas la cabo ama la cuno rag iyo dumar waxay rabaa isticmaalaane qofka kaleeto markuu guursado ka hor intuusan guursan ka hor waa in la iska hubiyaa balwad la'aan inay jirto waxaad ogtiin maanta iska dhaaf qoys inaan ku dhisannee hay-adaha shaqada qorta oo maanta Soomaaliya ka dhisan qofka waxyaabaha interviewga looga qaaday waxaa ka mid ah balwadiis in la weydiiyo maxaa balwad leedahay leey qor da sigaar cabto da chat cunto haddaan balwayna qorta waxay difaac uga jiraan inay qaataan qof balwad leh sababta qof balwad leh shaqada laga rabay qaban maayo waqtiga laga rabay shaqada iman maayo waa habsad ama hadal ahaan iyo muuqaal ahaan buxun yahay haddii waqtiga xilaaliyo oo qof waqtiga ilaalinaya xataa oo balwadiisa xakameyn kara nafsan ahaan buu caafimaad qabin oo frustration iyo buuq iyo dadalaqan xumo iyo dabeecad xumo iyo jiro wax daran baa daba socda oo balwadaas u keentay dadka qaadka cunaa uma suura galaha inay nolol deganaansho ku noolaadaan ama balwadaba cuna ama hal lacab ama hal lacab caafimaadkoodii iyo dhaqaalahoodana wax ku baabaya qaadka qoysna mas'uul kama noqon karaan waa in arinta laga digtoonaada waxaan soo qaadanayaa sheeko yarana dhex martay nin dhalinyaro ah Hargeysa anoo jooga 2010 ayaan maamo hooyada xanuunsan oo wadnaha laga hayaangiyay dhakhtar baan marka u kalahay goor hore oo subax 10 saac meelaha wadnaha kaarkiisa si loo aan u soo qaadano 10 saac aan soo kacay aad baa joog u qabow ahaa faylkii baan soo galay faylkii ana ku jira waxa igu soo xigsaday wiil dhalinyaro oo qiyaastii 30 sano meelaha jira hadaan cabaar meeshii faylka ku jirna lambarkeena aan wali qaadan ayaa inankii la hadlo wuxuu yiri maada xanuunsan mise qof baa kaarka u doonaysa markaas aan ku yiri ma hooyo xanuunsan oo u doonaya inaan lambarka u qabto marka ana waa weydiiyay waxaan ku yiri adiguna ma qofaad ka socoto si ma aniga xanuunsan oo kaarkii daraadsanay nin dhalinyaro sida lagu hayaa waa la si sheekaysto waxaan ku yiri wuxuu ii sheegay inuu isagu xanuunsan yahay wadnahana laga hayo waxaan weydiiyay ma wax markaa jug kugu dhacday baa keentay wadna xanuunka mise balwad baad leedahay baan ku yiri
markaasuu yidhi maya aniga balwad baan leeyahay. maxaad cuntaa ama cuntaa baan ku yidhi oo balwada. wuxuu igu yidhi jaadna waan cunaa sigaarna waan cabaa labadaas balwad baan leeyahay. waay waxaan ku yidhi sigaarka imsaad cabtaa maalintii. markaasuu yidhi waxaan cabaa steak hal baakad baan cabaa 20 xabo 20 mir yaan cabaa. qaadkana maalintii maxaad cuntaa? maalin kasta marduuf baan leeyahay waa ka shaqaystaayo marduufkaas daanaa isku ogaada anaa cuno wey. wiilka marka waxaan ku idhi adiga oo maalintii 20 xabo sigaara cabaya marduuf qaadana isticmaalaya wadna xanuunna see uga cabanaysaa? wadna xanuun see uga cabanaysaa? see u fakartay adigu silinga suna isku duraya inaad dhakhtar tiraahdo kaale daaweyn. wiilku waa ii soo jeesto wuxuu igu yidhi ii faahfaahay ma fahmin see anigu isu dilaya. waxaan ku yidhi reer ma yeelatay? markaasuu haa reer baan yeeshay. saan yidhi meye kuu dhaqan yahay? suu yidhi meye waan heshiin weynayo markii xoogaa inantii xaggii jiifkiina dee waa ku adkaatay xaaladaydii dhaqaalihiina waa noo saamixi waayey marka dee gabadhii waa iska diray buu yidhi oo markaan xal u waayey ay tiri isakay sii daa saan kuguma noolaan karo waa iska sii daayey. waxaan ku yidhi ilaa aad balwadda joojisid oo aad sigaarkii qaadka cunis joojisid caafimaadna arki maysid wanaagna arki maysid. laakiin markaad joojisid sigaarkaas iyo qashinkaa cunaysid reerkaagii waa soo ceshan kartaa gurigaagii waa ku noqon kartaa caafimaadkaaguna waa hagaagaya. si arrintii u fahamsiiyo oo si fiican wala dhiciyo waxaan ku yidhi bal la soo bax moobeelkaaga bishii haddaad tiri waxaan maalintii haddaad tiri waxaan cabaa 20 xabo sigaar bishii imsa xabtaad ma taqaan bal ku dhufo bal 20 ka 30 ku dhufo 600 xabaa soo baxday oo sigaar in uu bishii cabo 600 xabo oo sigaar in bishii cabo. waxaan ku yidhi ku dhufo 12 bilood 12 kii waa lagu dhuftay 6dii 7200 xabo 7200 xabo sigaar uu sanadkii ninkaas u cabaa wadna xanuunna uu ka cabanayay reerkiisina waa ka tegey. ninkii markuu 7200 xabo resultiga soo baxday uu arkay ayuu inta yaabay indhaha taagay sidii qof waagu u bari wuxuu yidhi macquul ma ahano anigu 7200 xabo sigaar ma cabo. saan hadda waa xisaabtaada ku noqon Soomaalintii 20 ma cabtid bishii waa 600 xabo ku dhufo 12 bilood waa 7200 xabo 7200 madfac ee wadnaha ku dhufataa baan ku dhakhtarna maanta oo fadhidaa banaanka. see ku keenaysa caqli soo fikiraysa adigu soo in caqliga xisaabt ku xunto timaa. dhinaca kale aan u dhigo waxaan ku yidhi dhinaca dhaqaalaha intaan u gelin dhinaca caafimaadkaan u galo u sii wada waxaan ku yidhi sigaar waxay ku qabataa bal meesha sigaarka ku qabato bal eeg. wuxuu yidhi farahana ugu badan waxaan ku cabo maxaa ka muuqdaan ku yidhi faraha waa ogtiin meesha sigaarka lagu qabto inta badan ninkii sigaarka cabaa wuu ku halmaamaa ilaa xanuun uu dareemo dabka ah ma fahmo in sigaarkii dhammaaday ma fahmo. markuu dhammaado xanuujiyo ayuu tuuraa haashka. dadka balwadda loo fiirsada marka waxaad arkaysaa gacantii oo guban meesha sigaarka lagu qabto inta badan bidixda ku cabaane ilaa wax shaydaan weeye wax bidix lagu cabo sigaarka u badane waxaad arkaysaa halkaa iyadoo gubatay. waxaan ku yidhi xagga ka waran wuu fiiriyey wuxuu yidhi waa gubantaa wataasaayo dabkii baa ka muuqda xaggee ku xigtay sigaar ku qabataa baan ku yidhi bishimahan ku qabtaa bishimihii meedii waa ibar waa kuwa madoobaadeen waa in ilkihii ka waran dee ilkamaba jiraan waa khalaas waa baaba'een. waxaan ku yidhi sigaarka gacantaadii iyo ilkahaagii iyo bishimahaagii sidaa u galay oo ah waxa subaxii markaad kacdada aad dhaqaysid ood ka cadayanaysid oo aad baabi'inaysid bakteeriyada halkaa saaran saa u gubay maxaad u malaynaysaa gudahaaga inay gaarsiiyeen? uu ka garaa wallahi wuxuu yidhi way ka darantaa sababtoo guduhu waa waxaan baa hawo gelayn waa meel aan hawo helin waa meel aan dhaqi karin wallahi dhib baa ka jiro. waxaan ku yidhi waxaad ogaataa marka adiga haddaa isdilayso qof badbaadi inaad tahda waa khalad. horta adigu dilka iska jooji. qof isdilayo oo qof badbaadi asna sun dhinac kale isaga wada taariikhda kama dhacdaan ku yidhi 7200 xabo sigaar ay cabaysaa caafimaadkaaga ilkahaaga iyo gacantaada iyo jirkaaga iyo beerkaaga ku baabiinaysaa. dhinaca dhaqaalaha u soo noqo. dhaqaalihi haddana waxaan ka tusay qarashka ku baxa sigaarka 7200 xabo yaa xisaabino
ilaa $400 lacag ku dhow ayay noqotay lacagtu sigaarka sanadka ku cabo. waa nin hadda maalintii $10 qaatay ninkaas. $400 lacag ku dhow ayuu sigaar ku cabaa sanadkii. dhinacii qaadkan xisaabinay 3,700 iyo xoogaa jarjar yay noqotay lacagta uu qaadka ku cuno sanadkii. $4,000 taqriiban ayay noqotay sanadkii ninkaas wuxuu qaadii sigaar ku cuno. waan xasuustaa Cismaan Xuseen baa la oran jiray ninkaas, samigaybu ahaa Cismaan baa la oran jiray Xuseen. waxay u noqotay kulankayga kulan qiimo gal ah. wuu la yaabay, wuxuu yiri dhaqaalaha intaa leegana waa iga baxaa, wax intaa leegana waan isticmaalaa, dhakhtarku in badan buu igula taliyay, jaadka iska daa buu igu yiri, sigaarka dad badanna waa yiri, laakiin statistics-kaas tira koobka iyo sidaad ila hadashay iyo qaabkaad ii fahamsiisay weli qof ii fahamsiiyey ma arag. waxaan kaa rabaa ustaadow, waa ka shaqaystaa, reerkayga waa ku waayey, asaga waxaan ahayn ma aqaan, waan ka shaqaystaa isii ku daaya. waxaan ku yiri waxaad samaysaa hal bil lacagteed, bil intii ku filan kharasha diyaarso. markaa bishaa diyaarsatid baadiye u bax 15 maalmood oo baadiye ah soo joog, qashinka calooshaada ku jiray suntii gaaska iyo qashinku ugu reebay iska soo mayr, soo calool bax adoo nadiif oo 15 bari caana soo cabiyo geelale ka yimid magaalada ku soo noqo, halkaa ku xir baan ku yiri. dhiigaaga isbedel xir 3-4 casho baa dhulku kula wareegayaa oo aad moodaysaa inaan wiish saaran tahay oo lagu wareerinayo. aspirin iyo shaah kulul iyo xanjo iyo wax isticmaal. hadday kaa go'an tahay waa sigaarka waa kaa joojinaya isqaadkaas ka istaagaya. waxaan noqon doontaa nin noloshiisa inta mana ku liibaana, reerkaaga waa soo ceshan doontaa, ilmahaagina waa u tegi doontaa haddii alla idmo, dhakhtarkaana waad ka maarmi doontaa baan ku yidhi aad leedahay. markii afraad baan usoo noqday, teleefanadan kala qorannay, way ballan qaaday. waxa ilaahay fadligiya 3 bilood kadib inuu intay soo wacay yiri shaqadii waan sameeyey, baadiyihii waan ka imid, jaadkiina waan joojiyey, ilaahay idankii waan kaga mahadcelinaya talada waaga asiisa, waanan caafimaaday. haddana waxaan rabaa reerkayga inaan soo cesho. bal u fiirsan ninka reerkiisi maxaa ka waday? balwad baa ka waday. mid dhalinyara oo caafimaad shaqaysanaya ayuu ahaa. balwadii markuu habeen maalmo baqaad cunayo, sigaarna cabayo, xoogu qaadanayana shaah iyo qashin kala ku cunayo, reerkiisa waa ku kala guuray. asagana waa ku baaba'ay, reerkiisina waa ku dumay. boqolaalkiisoo noocaasa jirta oo maanta qoysaskeena baabi'iyey. waxaa loo baahay marka balwadda noocaasa waxay noqotay balwadda baabi'isa maanta reerahanagii inaanu iska joojino. marka horena aan ka tashano qof balwad leh oo qaadi sigaar iyo qashin cunaya inaan guursan, gabdhuhu ay ka tashadaan. marka xigtana haddii ay ku dhacaan kiiskaas ay ku talagalaan sidii kiiskaas oo xalin lahaa inay ka fekeraan oo ay qoyskaas u burburi lahayn. marka balwadu reero badan bay naga burburisay, aan ka taxadaro insha Allah taala. balwada internetka waa la socotiin maanta meesha ay marayso. social media, facebooka, imoga, whatsappka, ya dhalinyaro dhan baa ku jirta, waa ogtihiin. maxaa dhacay marka? qoysaskii dhisan oo wada dhaqmaya oo gurigooda dugan ayaa qof Facebook ku jira oo cid la sheekaysanaya oo messenger lagu wada jira oo whatsapp lagu wada jira. okay, ha lagu jiro, qaabka loogu jiro iyo habka loo communication garaynayo wuxuu abuuray in la isku dhaco laguna kala tago guriga. sababtoo waxaa dhacaysa waqtiyada uu ninka iyo naagtiisu wada joogaan, facebooka in la wada isticmaala waa sax, iyadoo isku meel la joogo, laga sheekaysanayo, la midaysan yahay. laakiin markii la seexdo oo hurdada la galo, haddii inantu inta kacdo Facebook la fariisto qolkii chiefka ama qol kale la gasho, maxaad u maranaysaa inay ka dhalanayso oo waqtigii hurdada ay ku qaadato Facebook iyo soo jeed? muxuu dareemayaa ninkii gogasha looga tegay? waxaan filayaa arrintaa inaad dareemi kartaan culeyskeeda. sidaas si lamid ah waqtiyada la shaqaynayo oo shaqada guriga ay hooyadu joogto oo ninku uu shaqada aado, haddii uu internetka soo galo oo arka adigii oo kugu jira khadka oo ma ka baxaynba, oo gurigii shaqadiisii dayacay, oo ilmihii iskoolkii iyo waxbarashadii iyo gurigaagiiba aad ku baabi'isay, waqtigaas ka shaqaysanaya inaad Facebook ku jirto ama messenger aad ku sheekaysato, arrintaas waxay keenaysaa shakiguna wuxuu keenayaa guriga inuu burburo.
waxaan aragnay rag badan oo maxaan ku idhaahdaa biidni illaahi tacaala inta magacii bedeshay kaar cusub qaatay reerkiisi intuu ka shakeeyey haddana kusoo galay asagoo magac kala wata oo gabadhii oo Facebook ku jirta oo fadhiga tagtay waqtiga la seexan lahaa intuu magac kala qaatay iyo lambar cusub oo halka ka soo galay oo halka kala hadlaya soo chief ku jiro la hadlaya xaaskiisa oo fadhiga qolka fadhida waa qisada igu yaabka badan dhacday ah sababtoo ah gabadhan markay odageedu seexday Facebook galaysaa maxay u galaysaa waa yaab haddii markii odagu seexday iyadoo ay war u baahan tahay iyo cid kale yaa la sheekaysanaysaa yaa ka mudan odageeda oo ninkeeda guriga jooga yaa ka mudan inay u sheekayso waqtiga ku bixinaysa Facebook iyo imo may odageeda geliso may ag seexato may u sheekayso waqtiga shaqada lagu jiro oo guriga lagu dhex jiro oo maxaan ku yiraahdaa isha shaqadana waxaa la rabaa in la joojiyo Facebook iyo waxyaabaha social media ah ee faa'iidada badan la runtii faa'iido badan baan ku qabnaa in dhinaca fiican looga faa'iideysto oo waqtigaas inta la iska xanimo shaqada guriga la qabsado hawsha ku taal la qabsatid hadhow markaad dhamaysato 10 daqiiqo rubi saac aad ku jirtid it's enough laakiin hadaa shaqo ka dhigatid oo waagu markuu bariyay markuu qoraxdu dhacdo Facebook ku jirtid 24 hours odagaagu uu fahmo inaad online tahay hatta ma shaqaale Facebook baa tahay mise shaqaale imo baa tahay mise qof guri joogo hooyaha ilmo dhaqaaleynayso oo nin ka taxadirayso mas'uuliyad reer saaran yahay kiisaska aan arkay ee uu kala diray social media wax la xisaabin kara ma sida ay isugu dhaceenna waa qaabab kala duwan waxaana ugu badan shaki ka dhashay waqtiga gabadhu ay ku jirto messengerka ama Facebook sababtoo ninkan intuu guriga joogo wuxuu rabaa inuu gabadhiisa xaaskiisa la joogo wuxuu rabaa inay u heliso wuxuu rabaa inuu u shakeeyo hadduu asaga sidoo kaleeto waqtiga gabadhu ay u guriga yimaado oo inta meel gaar ah gala Facebook iyo inta maanta ku jiro gabadhii inay u baahan tahay inay asaga u heliso oo iyada ka fogaanayana gabadhaas waa shaki baa galaya why kala qumanta inta guriga ka timaadid oo xaaskaaga u timaadid oo aad qabaysatid inaad inta fadhiga gashid ama meel gaar ah fariisid maanta Facebook ku jirta iyadana gaar ay ku sugayso ma wax saxan ba soo aqli saliima ma ahan waxyaabaha qoysaskeena burburiyay ka mid tahay social media waxa loo baahan yahay in social media waa faa'iido badan yahay waana khasaare badan yahay waa faa'iido badan yahay oo maanta waxyaabaha maanta dadka isku xiray oo aqoon badan laga faa'iideystay oo dunida isu keenay ay isagu noqday waana khasaare badan yahay oo afkaas sakiin buu ka noqday oo dhinaca khaldan marka aad ka fahamto ama waxyaabaha la soo dhigayo oo dhaqan xumada ah ha noqoto oo waqti la geliyo ama adigoo ku mashquula waxaan maslaxadaada ahayn oo Facebook ha noqotee qoys burbur bay noo keeneen qoys burburkaas noo yimidna waxaan rabnaa in aan joojino intii hore nooga ekaado inuusan social media qoysaska naga burburinin inuusan shaki abuurin in wiilka iyo gabadha isqaba markay Facebook ku jiraan ama social media ay isla fariistaan ay isku meel fariistaan ay share gareeyaan ama ay wadaagaan waxa ay ku jiraan maxaa ka qarsanaysaa ninkaaga marka qolka fadhiga fariisanaysa wuxuu soo ka qarsanayaa markuu asoo gaar u baxayo waxa loo baahan yahay in qofka kale kalsoonidiisa ilaaliyo shaqada guriga marka la isu yimaado wehelka labadiina idin ka dhaxeeya waa inaad ilaalisaan oo isu heshataan waxa ka hadlaysaan haddaa rabtaan midba gaar ah oo hadla laakiin waa inaad isla fadhidaan oo wax isweydiinaysaan oo sheeko idin socotaa oo warkuus idin ka xirmin laakiin marka anigu la sii jeesto Facebook oo dhabarka u dhow xaaskaygii ama iyadu waqtiga anigu aan nasanayay ay iyadu meel gaar ah ku sheekaysato arrintaas guriga badan naga burburisay aan iska dayno oo aan wadaagno waxaan ka wada hadlayno aan ilaashano guriyaheena aan iska ilaalino social media inuu guriyaha naga burburiyo wax gurigeena ka qiimo badan oo helina ma jirto waaye balwada saddexaad waa balwada midabka lagu bedelo balwada midabka lagu bedelo raaliga ahaada gabdho badan baa laga yaabaa arrinta inay xoogaa ay taabanayso iyo hooyooyin badan gabdho badan markaan leeyahay gabdho badan oo inama oo maanta midabkooda u bedelay aad soo jiidatid raggi gayaanka waa jiraan laakiin anigu waxa la yaabana hooyooyin 10 cunug 8 cunug dhalay yaa midabkoodii bedelay oo muuqaalkoodii bedelay kuwaas marka maxay uga jeedaan
aniga haddaan fikray waxaan u qaatay odagu yuusan gabdhahaas caddeeysa kaa arkin aad ku ceshatay meesha inay tahay aniga saas ay la noqotay laakiin midab la bedelay oday ma lagu haysan karaa waxaa la rabaa in la sifeeyo oo la bedelo waa qalbiga iyo kalsoonida iyo dabcigaaga ayaa la rabaa inaad sifaysid oo wanaajisid si qofkan aad u haysatid laakiin muuqaal la bedelay qof ma hayo muuqaal la bedelay qof kuma celin karo waxa qofka ku celin karaa waa damiirkaaga oo hagaajiso iyo dadnimadaada oo si wanaagsan uga fikirto ninka aad 10 cunug dhashay 8 cunug dhashay oo 15 sano ama 20 sano ku dhawaad aad xaaska u ahayd oo intaana aad saa kula soo dhaqan inaad si kale isu bedeshaa waa ku doqonnimo midabka gabdhaha Soomaaliyeed waa lagu faani jiray waxa lagu faano ahaa waxaan xasuustaa kelmad la oran jiray saas maariin casaan galay waa midab u gaaray gobsana hablahayagu bal fiirso maariin casaan galay waa midab u gaaray gobsana hablahayagu waa ku faani jirnay Soomaalinimada midabka madowga oo casaanka u galay midabka maariinka Soomaalidu waa maariin inta badan gabdhahan waa qurxan yihiin mid waxaad arkaysaa iyadoo iska qurxan oo midab casaan Ilaahay iska siiyay ama iska ifaya haddana la dagaalantay intii yartaa iyadoo iska baabiisay marka is cadayntaanu mashaakil badan bay keentay qoysas badan bay naga baabiisay ama markuu qoysku dhismo ha noqoto in la is cadeeyo oo qoyskii uu dhex lagu dhex jiro ama ka horba intaan qoyskii la dhisin ba la is cadeeyay waxay naga baabiisay qoysaskii midabkan la bedelayo wuxuu leeyahay marka saddex arrimood waa weyn midabkan la bedelayo saddex arrimood waa weyn ayuu leeyahay midka koowaad waxa waaye gabadhii hooyada ahayd oo guriga mas'uulka ka ahayd markay midabkeedii bedesho waxay ka fogaanaysaa jikadii iyo cuntadii reerkii cilmihii ay u karin lahayd waxay door bidaysaa inay dad kala adeegsato oo qolo kala tirada ii shaqeey oo ay ka carartay jikadii iyo shaqadii guriga ka socotay waxay ka cararaysaa meel huur ah wadankeena climate-kiisu waa kulayl marka maadaama aan kululnahay oo hawadii noo kulushahay midabkiina ay iska qaaday oo difaacii jirkii ay baabi'isay uma adkaysan karto gabadhu kulaylka taasina waxay keenaysaa inay ka fogaato jikada ka fogaatana waxay keenaysaa in habkii gurigaas uu u socday dhinaca cuntada iyo karinteeda iyo hagaajinteeda uu isbedel ku yimaado taasina waxaa laga yaabaa inuu dareemo aabuhu inuu dareemo sida wax u socdaan inay sax ahayn ilmahaaga inay wax u karin weydo mashaakilkaas uu la yimid mashaakilka labaad uu la yimid waxa waaye oo uu iscadayntu la yimid la timid in caafimaad darro ka dhacdo gabadhii jirkeesay bedeshay muuqaalkeedii baabi'isay waxay u nuglaanaysaa xanuun oo dhan jir oo dhan bay u nuglaanaysaa bal u fiirsada hargab baa ku dhacaya waa u liidata sababtoo difaaca jirka baaba'ay maqaarka Ilaahay wuxuu noo siiyey waa difaac waa protection jirku difaacaya jirkii waxa u banaysay xanuunadii si sahlan inay u galaan antifungus baa ku dhacaya waa baaba'aysa hargab baa ku dhacaya waa la jiranta difaac male bronchitis baa ku dhacaya waa la jiranta waxay keentay marka hab amarna laga caafimaadeen oo jiro socoto ah oo gabadhii iska jiran tahay ilaa maqaarkiiba iska rogtay jirre aan dhamaanin marka maxay keenaysaa waxay keenaysaa bogta badan iyo baryo badan baa la isku nacaa Soomaalidu tiraahdaa markaad maalul baa soo jiran ninkaaga ku yimaado oo ta ku daaweeyo aadan marna caafimaadeen bil aadan way qalbigiisu isbedeli karaa marka awal inaad cashato yaad soo cadaysa oo waxaad ka tagin laakiin marka jirada bato ka tagay laakiin haddii jirkaaga caadi aad ka dhigtid oo caafimaad qabtid oo jirkaaga caadi xormadaadii xaqaaga iyo xushmad badan waad haysataa oo jirkaaga maada bedelin hooyo la ixtiraamo ilmaheeda u shaqeynayna waa tahay marka waxaa la rabaa in qofku fahmo in iscadayntu marna khayr u lahayn qodobka saddexaad oo iscadayntu la timid waxa weeye dhaqaalihii guriga ku baxa midabkii wala fiirso gabadhan waxaa laga yaabaa dakhliga soo gala inuu yahay dakhli gurigaas noloshiisa ku saabsan waxaa laga yaabaa raggu inaysan bixin kharashka la isku cadaynayo 90% bixiya 10 baa laga yaabaa 100 inay maanta bixiyaan kharashka la isku cadayo reerkiis sababtoo is cadayntaas fikri badan ba Soomaalidu aysan ka haysano ay ogin wax fiican aysan ahayn marka inta badan raggu ma bixiyaan waxyaalaha midabka lagu bedelayo qaabkee marka gabdhuhu midabka ku bedeshaan waxay ku bedeshaan ama dhaqaale mar soo galay ha ahaato ama income iyada gaar ah ha ahaato ama biilka la siinayo oo guriga ku baxaya
ha ka dhex saartee waxay u badan tahay midabka marka la bedelay in kulli qorshe jiro laakiin si loo joogteeyo midabkii la bedelay oo maalin walba la soo cadeeyo waxay u baahan tahay kharash joogta kharashka joogtada marka xagee laga helayo waa in biilka laga dhex saaraa marka midabkii aad bedeshay wuxuu la yimid kharash dheeraada oo aad u baahan tahay kharashkii dheeraadka u baahan kama heli kartid ilaa aad biilka reerka suuq geliso oo aad sidoo ah wax ka bedeshid oo aad qaybisid aad maalin walba wax ka reebtid si aad ugu talagashid in wiiga soo socda isku cadaysid ama bisha soo socota kharashka isku cadan lahayd aad meesha ka soo saartid maxaa ka yimid marka waxaa ka yimid ilmahaagii habka u noolaan wax iska bedelaan waxaa ka yimid in odagaagii qaabkii uu wax u heli jiray uusan u helin waxaa ka yimid suuqul gurigii inuu galo oo adiga jirkaaga aad gelisid wax alla wixii soo baxay marka barnaamij dhaqaale leeyim barnaamij dhaqaale oo gurigaagii ayuu leeyim dhaqaaluhuna wuxuu ka mid yahay waxyaabaha guryaha marka la isku qabto shakiga keeno oo ninkan lacagtu dhiibayo hadduu ogaado dib baan uga geli doonaa inay khalad meelaan sax ahayn ku socoto waxaa laga yaabaa inuu diido inuu bixiyo ama uu si kaleeto u fakaro meeshan waxba ka soo bixi mayaan isaga tag marka waxaa la rabaa in barnaamijka si fiican looga fakaro balwadu waxyaabaha ay maanta nagu hayso waa caam wax khaasa maaha guri walba ayaa laga yaabaa maanta problemkaas inuu ka jiro ama midabkii la iska cadeeyay ama maxaan ku yiraahdaa social media ka dhex jiro ama balwadan qashinka oo la cuno ama la isticmaalayo marka casharkeena maanta biidnillaahi tacaala maadaama uu aad muhiim u ah balwada aan ka hadlaynay waxaan ku soo koobaynaa intaa waxaanu geli doonaa insha Allah casharada soo socda gogol xumada ayaanu geli doonaa oo iyadana ah factor ama xubin weyn oo maanta guryaha naga baabi'isay waqtiga insha Allah nagu yaraaday waqti kale aanu geli doonaa xabad baan u sharxi doonaa insha Allah tacaala waxaan rajeynayaa in si fiican inta loo fahmo oo si fiican la isaga kaasho in balwada si fiican loo fahmo in guryaha naga xalaka badan dhib badan ku hayso aad iyo aad baa u mahadsantihiin waa Cusmaan Qoysbile oo idin leh mar kale iyo kulanti wanaagsan wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh buugga xalka qoyska xubbiye xurmadii qalbigayga ay dumartaan ka xushaay xabiibi xalku waa sidee xaalkaygu ma fiicna xushmadaydu ma buuxdo intaan xalka qoyska xafidayo dhammaantii oo aan xiriirkeena ku dhisanayno xogtiisa aan wada xafidno dhisano reer xurmad leh xalka qoysku waa maxay xalka qoysku waa buug xaajadii gurigeenna iyo xeeladii aqalkeenna noo xayaabo tiro xusuus weyn inagu reebi xalka qoysku waa buug xalinaya dhibkeenno ka helayno xog buuxdo qoysku uu ku farxayo xalka qoysku waa buug xeeldheero qoyso la xumaatay xaajadu qoyskeenu joogo xalinaya xumaho xulo oo hasiiday xushay oo ma deyne xagee baan ka helayaa waxaad ka heli kartaa dhammaan xarumaha buugaagta lagu gado sida Zaylac Bookshop, Qaaf Bookshop iyo Barakaad Bookshop. xalka qoysku waa buug kugu tababaraya sidaad u dhisan lahayd qoys waara iyo sidii aad isaga saari lahaydeen mugdiga iyo is-afgaran waaga hareeyay guryaheena horay u gaar oo yaan laga dhamaysan xalka qoyskaaga xalka qoyskaagu wuxuu ku jiraa inaad hesho buugga xalka qoyska xalka qoyska xalka qoyska